khuburo saynisyahan ah oo cilmi baarayaal ah ayaa ku guuleystay inay biyaha badda xeebaha waddanka Canada ka soo saaraan xayawaan noociisu u egyahay kalluun balse muuqaal ahaan aad u cajab badan oo aan hore weli aadamahu ugu araga badda gunteeda barigana aan weli loo soo saarin. makhluuqan cajiibka ayaa toddobaadkii hore koox khuburo saynisyahan ay ka soo saareen masaafo dhan 2,000 kiiloomitir oo badda salkeeda biyaha xeebaha galbeed ee waddanka Canada gaar ahaan gobolka Davis Strait. afayeen u hadlay koox khuburo ah oo ka howlgasha jaamacadda University of Windsor oo lagu magacaabo Nigel Hazy ayaa saxaafadda u sheegay in cilmi baarayaal jaamacaddooda ka tirsan oo muddo badan baaritaan ku waday noolayaasha la yaabka badan ee badaha guntooda ku nooli ay toddobaadkii aynu soo dhaafnay badda gunteeda ka soo saareen makhluuq cajab badan muuqaal ahaan oo aan badaha hore abid loogu arag kaasi oo muuqaalkiisu aad u leeyahay badan yahay. cilmi baare sare Nigel Hazy waxa uu sheegay in noolahaasi loogu tagay masaafo dhan 915 mitir badda salkeeda hoose xeebaha waddanka Canada gaar ahaan meelaha baddu ugu gundheer tahay, isaga oo sheegay inaanu xayawaankaasi ku noolayn goobaha dhadhow ee badaha xaggooda sare balse uu sida qaalibka ku nool yahay meel aan jooggeedu ka hoosaynin ama uusan ka sokaynin 1,000 mitir ilaa 2,000 mitir. taasina ay tahay sababta aadanuhu mar keli ah oo hore u arki waayay noolahan cajabta badan muuqaal ahaan iyo nolol ahaanba. kooxdan khuburada ayaa tijaabinaysa hanaanka nololeed ee xayawaankan badgalka ah iyo weliba in uu ku noolaan karo biyaha barkadaha iyo guud ahaan biyaha badaha ee loo xidho goobaha dalxiiska ay dadku ku booqdaan. cilmi baarayaashan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen wax ka ogaanshaha noolayaal kale oo ay badda ka raadinayaan maadaama aan weli cilmiga aadamuhu wada koobsan noolaha badda ku hoos jira amaba koonkana aynu ku noolahay.